zafer yarım! Ya zafer yarım! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! sida uu daabacay jaraa'idka lagu magacaabo Yeni Zafag ciidamada Turkiga ayaa waxay xeradani military ee dawladda Turkiga ay ka hirgelisay deegaanka Jazeera ee magaalada Muqdisho waxa ay ku tababari doontaa ciidamada Soomaaliya iyo waliba ciidamo ka socda dalalka Afrika oo tababar military ku qaadan doona gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga General Hulusi Akar ayaa la rajaynayaa in ay qayb ay ka noqdaan furitaanka beeskani ciidan oo munaasabad weyn oo furitaan ah loo sameeyo bisha April ee sanadkani dhismaha xaruntan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku baxday lacag gaaraysa 50 milyan oo dollarka Mareykanka waxayna awood ay u leedahay in markiiba lagu tababaro 500 oo askari xaruntan ayaa xarun ciidan midda ugu weyn ee dawladda Turkiga ay ka hirgelisay meel ka baxsan dalkeeda waana xarun loo dhameystiray wax walba waxayna ka kooban tahay goobo tababar iskuulo qeybo jiifa iyo waliba meelo lagu sameeyo dabridka iyo waliba goobo caafimaad dalka Soomaaliya ayaa waxa laga curyaamiyay dhanka ciidamada waa midda keentay in dalka Soomaaliya uu u soo kabana muddo ku siman 26 sano dhinaca kale dawladda Turkiga ayaa waxay xurguf siyaasadeed kala dhaxaysa dalka Imaaraadka Carabta taasoo soo shacbaxday markii Turkiga ay ku dhawaaqday dhismaha xaruntani bishii Maaj ee sanadkii 2015 taa bedelkeeda Imaaraadka Carabta ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday inay la wareegtay dekada magaalada Berbera oo ay rabto iminkani inay ka samayso base ciidan dawladda Turkiga ayaa waxay noqotay dawladda kaliya ee caalamka oo si hagar la'aan taageero ugu muujisay shacabka Soomaaliyeed xilliyo adag waxayna magaalada Muqdisho ay ka hirgelisay safaaradeedii ugu weyn caalamka base ciidan oo ah midka ugu weyn caalamka oo dawladda Turkiga ay ka hirgelinayso meel ka baxsan dalkeeda waxayna dib u dhis ay ku samaysay wadooyinka caasimadda hirgelinta goobo caafimaad goobo waxbarasho waxayna gudaha Soomaaliya si joogto ah duulimaad ugu sameeyaa diyaaradeeda Turkish Airways Salman Jamal Saeed TV عالمية Universal magaalada Istanbul